maadaama mobilka ilmaha uu yahay kan imika aynu shaqada ka bilaabayno waxaynu tegaynaa settingska ayaan tegayaa settingka markaad gashid adiga hoos ayaad u soconaysaa waxaad baaraysaa meesha ay ku qoran tahay Google ama Google kadib ku dhufo Google qaybtan markuu kusoo geliyo waxaad taabanaysaa meeshan ay ku qoran tahay all services si dhammaan adeegyada oo dhan lagu soo bandhigo hoos baan raacinaa all serviceska waxaanu baaraynaa inay ku qoran tahay parental controls waa kan wuxuu soo hosgelayaa qaybta la yidhahdo children and family carruurta iyo qoyska marka waxaan dooranaynaa parental controls baan ku dhufanaynaa meesha waalidka laga rabo in ay ka maamulaan mobilka ilmaha marka waxaan leenahay okay let's do aynu bilowno kan marka ciwaanadan ku saar haddii dhowr gmail mobile ku jiraan wuxuu ku saarayaa gmailada mobilka ilmaha ku jira ayuu ku saar marka gmailkan ayaa dooranaysaa hadduu dhowr yahay kaasaad ka dhex dooranaysaa kadib waxaa leedahay supervisor account waa kan akoonka la rabo in la kor joogteeyo oo la maamulo supervisor account ayaad marka ku dhufanaysaa okay stepka labaad baan marka taabanaynaa marka waxaynu u baahanahay markan inaan next ku dhufano shaqadii waalidka hadda bilaabatay xaggan waxaa la gelinayaa marka waalidka emailkiisa qofka waalidka ah gmailkiisa halkaa la gelinayaa si uu u maamulo mobilkan ilmaha marka waxaan gelinayaa gmailkaygaan geliyey passwordkana waa raacinaya markaan passwordka geliyana next ayaan leeyahay okay kadib notna waa leeyahay save karayn marka waa kan marka gmailkayga markaan geliyey seebuu waalidku wax u maamulayaa waxyaabaha halkan waxaad ka akhrisanaysaa waalidku uu qaban karo uu samayn karo iyo waxyaabaha uusan samayn karin oo dhan waxaan kusoo taxaya aduu hawlahan oo dhan mid baynu u baran doonaa hoos baad u soconaysaa halkan ay ku qoran tahay waxaa sharaxaado oo dhan iyo waxyaabaha waalidku uusan samayn karin oo kale ku jira ugu dambeyn hoos markaa soo gashid waxaa la rabaa ilmaha inaad geliso passwordka gmailka ilmaha maadaama soo gelinay gmailka waalidka iyo passwordkiisii inaynu ilmaha mobilkan isticmaalaya aynu gmailkiisa ugu jira aynu controlayno passwordkiisa gelino marka passwordka ilmaha ayaan gelinayaa marka wax yar waa sugaysaa okay passwordka aan gelinayaa passwordka markaan geliyo waa kan getting next steps ready tallaabooyinka xiga ayuu diyaarinayaa marka wuxuu leeyahay your parent must be an admin waa in waalidkaagu admin ka yahay next baan leeyahay sii soconaysaa kadib wuxuu leeyahay allow supervision marka waa inaad ogolaatid in akoonkan aad maamusho marka dabcan adiga waalidkaaga gacanta ku haya allow baan leeyahay waa ogolahay inaan akoonkan admin ka noqdo mobilkan ilmaha okay kadib wuxuu leeyahay next ayaan leeyahay tallaabooyinkan oo dhan waan dhaafayaa kadib wuxuu leeyahay ready Samia's parental controls are ready waa diyaar oo mobilkan waa u diyaar to manage this device from your phone download the Google Family link marka adiga waalidkaa si aad mobilkan ilmahan aad u maamusho adigu la soo deg buu leeyahay applicationkii oo horeynu ula soo degnay marka waxaan leenahay dhan ayaan leeyahay imika marka uu diyaarsan yahay oo applicationkan imika waxaan ku xidhay akoonkii waalidka marka ilmaha hadda waxba loogama baahna mobilkiisa oo iska waxaynaa oo iska xidhaynaa halkaa shaqada wixii ka dhiman waxaynu kasii wadaynaa xagga mobilka waalidka waa hagaag imika maadaama aynu mobilka ilmaha iyo kii waalidka isku xidhnay waxaynu toos u tegaynaa programkeena Google Family Link markaan soo furo imika halkan durba waxaa ii soo galay mobilka ilmaha aad arkaysaan inuu yahay unlocked mid aan password ku xidhnayn ama mobil furan programku markaa daaqad ahaan shaashadiisu xaggana kasoo baxaysaa profilkiga ayaa xagga sare saaran xagga bidixdana profilkii ilmaha mobilkiisa ayaa saaran oo markaan saa isaga profilka ilmaha ku dhufto waxaan samayn karaa hadda add child haddaan dhaho waxaan kusoo xidhi karaa aan bilaabi karaa wax la yidhaahdo ilmo kale ayaan kusoo diri karaa ama mobil kale marka haddii dhowr ciyaal guriga joogaan wuu ku saamaxayaa marka imika waxaan sameynayaa shaashada waalidka markaa program markaan soo furno xagga hoose saddex qaybood bay u qaybsamaan waa tan koowaad oo la yidhaahdo screen time talabaad oo la yidhaahdo controls iyadana wadata optiono gaara iyo location iyadana wadata locationka oo loogu talagalay ilmaha mobilkiisa marka la rabo in GPS waxa lagu baaro in la ogaado
in la galo. marka saddexdaa ayaanu mid u sharxi doonaa. waxaynu ka bilaabaynaa marka shaqadooyinka ugu badan aynu ka qaban doono waa qaybtan la yiraahdo screen time. screen time-ka marka ugu horeysaba xaggan sare waxaad ka arkaysaan waqtiga maanta ilmuhu mobilkan ku isticmaala, maadaama aynu isla hadda isku xidhnay waa 0 minutes, laakiin inta aynu kor joogteynta ka hayno haddii hadda wixii ka dambeeyo isticmaalo mobilka daqiiqadaha uu maalin walba isticmaalo waa laynoo bilaabaya in laynoo sheego. halkan waxaa ku qoran mobilka inuu yahay unlocked oo passwordku ka furan yahay. hadaynu ku dhufano lock, mobilka waxaa ku dhacaya password ayaa isku xidhaya. marka sidee passwordka ugu xidhaysaa? waxaad kaliya taabanaysaa lock. sidaa darteed hadda wuxuu soo saaray in mobilka shashadiisu xidhan tahay. wuxuu sheegayaa in 6 inta laga gaarayo xidhnaanayo, laakiin waqtiga waa bedeli karnaa oo casharada inta inoo soo socota haddaynu gelaynaa in maalin walba mobilka xilliga loogu talagalay inuu shidhnaado, xilliga ilmaha aad ugu talagashay inuu ka demo. marka unlock markaad dhahdid mobilka ilmuhuna sidaa ayuu isku furayaa. marka mar baan loo garanaya, waxaan tusayaa mobilka ilmuhu waxa uu soo qorayo ayaa waxaan sameynayaa inaan screenshot ka soo qaado. marka imika mobilkii waa kan ilmuhu soo saarayaa time for a break, your parent has locked this device, oo ah waa xilligii aad break qaadan lahayd, mobilkana waxaa xidhay waalidkaaga. marka qaabkan ayaa loo xidhaa mobilka ilmaha loona furaa. oo haddii tusaale ahaan xilli dambe iyadoo ah ama waqti aadan raali ka hayn inuu mobilka isticmaalo aad aragtid isagoo mobilkii ugu furan yahay, waxaad samaynaysaa lock baad siinaysaa. marka hadda waad eegaynaa locked weeyaan, mobilka adaa xidhay. unlock markaa dhahdidna wuxuu halkan kasoo qorayaa unlocked oo mobilkaasi uu u furan yahay, mobilka kama aadan xidhin ilmaha. haddii aad ku dhufato marka hadda mobilka ilmaha haddaan saa ugu soo dhufano meeshan ay ku qoranta unlocked calaamadda mobilka asaa ku dhufatid, halkaa waad arkaysaa online today inuu maanta online yahay. halkaana 6% baa dabka ugu jira. marka tan back baan odhanayaa oo taas waxay ahayd sida mobilka loo xidho loona furo. haddaan ku noqdo wuxuu leeyahay badhamo kale oo magaca mobilka oo kale, haddaad rabtid mobilka ilmaha inaad magaca ka bedeshid oo kale tana taabanaysaa, halkaasaad magac ula baxaysaa. tusaale ahaan waxaan leenahay Saamiya oo kale aan leeyahay, saasuu marka usoo baxayaa. waad ka garanaysaa marka mobilada intii mobilka magaciisa kusoo bixi lahaa ee 12 iyo waxaa qof walba mobilkiisaad ku qoranaysaa, magaciisa qof walba ku qoranaysa. marka waxaan sameynaa haddaan dhahno hadda play sound, wuxuu sameynayaa mobilka ilmaha haddaa weydii oo kale waad dhegeysanaysaa codkan, dhegeyso hadda jabaqda. okay, badhanka markaa wuxuu kuu saacidayaa kaasi inaad heshid mobilka ilmuhu haddii uu ka lumay ama haddii aad isleedahay mobilka ilmuhu guriga ka dhex lumay u baadh. play sound ayaa odhanaysaa, halkaas uu ka qaylinaya, jabaqda ayaa dhegeysanaysaa. waxaa midigtiisa xiga activity. haddaan ku dhufano activity-ga marka waxaad eegaysaa haddaba no usage yet, weli ma isticmaalin wax application ah. galerigaasunbaa hadda markaan refresh baan idhi, saasaad odhanaysaa waa refresh garanaysaa, hoos baad wax yar saa ugu jiidaysaa. kadib 1 daqiiqo unbaa galeriga lagu jiray, wax ka yar weliba calaamadda xagga ujeeda leston waxay sheegaysaa in wax ka yar daqiiqad ugu jiray. haddii aad mar walba u baahatid inaad ogaatid dhaqdhaqaaqa ilmaha programmadu isticmaalayo iyo intuu mid walba ku jiray, activity-ga ayaad soo gelaysaa, waad refresh garanaysaa. marka hadduu marba application kala galo isaga mid walba kuu soo saxaya, halkan kuu soo taxaya oo kuu sheegaya daqiiqadaha iyo inta saacadooda ku qaatay. marka waa qaybta activity-ga oo aad ka ogaanaysid programmada uu isticmaalayo mid walba waqtiga ku jiray. halkana maalmihii baa ka arkaysaa. axadda haddaan taabto sabti waxaan mu isticmaalin maadaama hadda mobilada isku xidhnay, maalmihii isbuuc oo dhan saasaad u taabanaysaa. isniintii hadda la joogana waa kan. marka saasaad marka ku ogaanaysaa programmada iyo activity-giisa iyo wuxuu isticmaalo. halkan waxaa ku yaala isaga wax la yidhaahdo lock screen settings. haddii aad gashid marka wuxuu sameyn karaa lock screen setting waa kan. markaan ku dhufto emergency call only keliya, marka ilmahan wuxuu awood u yeelanayaa markaa lock screen markuu mobilkiisu loo ku xidhan yahay in emergency call bes oo adiga uu kaala soo hadlo. tusaale mobilka waad ka xidhay, duu rabo mobilka ilmuhu inuu iska kaa baryo ku yidhaahdo aabbo ama hooyo mobilka ii fur oo kale, si emergency callka waa loo ogolaanayaa. sidoo kale haddii aad unlimited time apps aad ku dhufato wax programma ka xidhnaanaya ma jiraan, oo unlimited bay u noqonayaan waqtiga mobiladu. marka emergency-gaas aan u furaya lock screen-ka. back baan leeyahay. app permissions-ka hadda haddaynu soo galno waxa weeyaan programmada permission-ka u baahan. hadda tusaale ahaan calendarka oo kale haddaan galno permission-ka yaa bixin karaa. tusaale ahaan programmo badan waxaa jira isticmaalaha mobilka access u leh inay calendarka kale isticmaalaan. marka calendarka Saamiya ilmaha iyo waalidkuba calendarka way isticmaali karaan weeyaan, oo permission way siin karaan. iskaga noqonaynaa inta badan waxaa dhacda programmo marka lagu duubanayo
u baahda in la furfuro permission kaamarado kale waalidka iyo ilmuhuba uu furan karaa. Marka kuwan permissionska sidooda ayaynu u daynaynaa hadaynu wax ka bedelno programmo badan aan shaqaynayn. Location sharing haddaadan saa ugu dhufto hadda halkaa sare waxaa ku qoran allow location access. Allow location access waxa weeyaan in waalidku markuu u baahda ilmaha in uu dabagalo meesha uu joogo, in uu ogaan karo positionkiisa. Haddii laakiin halkaas aanay furnayn sida iminka, waalidku hadhow awood uma yeelanayo in uu baadho meesha qofka ilmahaasi joogo. Marka waa inaan hadda sii furano si hadhow markaan u baahanahay inaynu baadhano ilmuhu meesha joogo ay noo fududaato. Intan hoose location kala sigo asagoo in location sax ah lagu sheego wax khaldan lagu sheegin iska noqonaysaa. Labadoodaba inagu waan furanay. Add or remove user waxa weeyaan ilmuhu isagu qof user ah ma saari karaa ama gmailada oo kale user isagu awood ma leeyahay inuu ka saaro. Haddaa furtida awood buu yeelanayaa, haddii aadan furina awood uma yeelan. Markaa ma furayno. Kan kalena waa applicationada laga soo degsado meelaha Play Store ka baxsan sida Chrome iyo Google iyo website-dada. Haddaan u furno waa inaad u ogashahay baad sheegaysaa. Hadda tusaalahaan hadda waa ka programka waa u furnay wixii Google Play Store ka baxsan inay la soo dego ilmahaasi. Markaa waan iska xiraynaa. Developer option-ku uu jiraa. Developer option-ku waa program setting-ta Samsung laga galo oo waxyaabo shaashada ilmuhu inuu wax ka bedelan karo setting-tiisa iyo waxyaabo yar oo qurxinayo waxaas sheegaysaa. Marka taana haddaan furno awood u yeelanaya way ilmuhu okay waan siinaya. Marka waan iska xiraynaa waxaas oo dhan. Waxaan haddaan tigta saaro add remove aan okay dhaho ilmuhu isaga userada saaray. Marka laga yaabo adiga gmail-kaaga iyo user kale inuu ka saaro. Marka waxaan oo dhan ma furaysid. Hadda saacadda halkaa hoose waxa weeye edit time and date in ilmuhu haddii mawlidka saacaddu khaldanto uu saxan karo. Marka waa u furaysaa okay waa leedahay. Haddii taas ka xidhan tahay ilmuhu mawlidka saacaddu si kasta uga khaldan tahay ma saxan karo. Marka taa waa u furaysaa. Back baan leenahay marka halkaa mawlidka ilmaha waxaanu ka aragnay in codkiisa la daari karo, in magaca mawlidka la bedeli karo, activity-giisa marba in programmada uu galay la eegi karo iyo mid walba inta ilbiriqsi uu ku jiray iyo daqiiqadood. Permissions-kan iyaga inta badan waxa lagama bedelo. Location sharing-ka waa in waalidku uu location-ka ilmuhu meesha joogo GPS-kiisa uu geli karo ama uu arki karo. Hadii ilmaha horey ula markaaga qaban waayo oo kale aad raadisid meeshuu bal joogo. Intan kalena iyaga sidooda ayaynu u daynay. Taa hoose in ilmuhu saxan karo saacadiisa ayaynu saxnay oo tigta saarnay oo iskaga soo noqonaynaa. Waxaanu gelaynaa qaybaha ugu sii muhiimsan ee time limits. Time limits waxa weeyaan maalin walba iyo applicationada ilmuhu isticmaalo iyo mawlidka waqti intee leeg uu isticmaalaya halkaas laga xadidaa. Marka time limits-kan ku soo dhufanaynaa. Halkaa waxaa ku qoran daily limit oo ah si maalinle ah imisa waqti intee leeg baa loo ogol yahay. Marka waan furaynaa. Okay, markaan furno laba wax marka soo saaraya. Waa today oo ah maanta. Maanta imisa saacadood baad u gashay inuu isticmaalo iyo tan kale waa isbuucii. Marka hadda isbuuca aad geliso sabti ilaa jimcaad maalin walba waxaad sheegaysaa saacadaha uu isticmaalayo ilmuhu. Marka waxa leedahay tusaale sabtida 2 saacadood ha isticmaalo, axadda 2 saacadood ilaa khamiista markaad gaarsiiso jimcaha kale leedahay 24 saac oo mawlidka ha isticmaalo. Marka today oo kale haddaan saa u taabano 2 saac baa si automatic ugu jira. Marka 2 saacadood kaliya markuu isticmaalo mawlidka ma isticmaal karo iska xidhaya. Waa inuu sugo maalinta kale ama intaad adigu uga kordhinaysid. Marka minuska waa laga yareeyaa saacadaha, pluskana waa laga kordhiyaa. Haddaan plus taabto hal mar waxaa ku kordhay 5 daqiiqo. Waan ku celiyay 10 bay haddaan noqotay. Waad ka wadaysaa ilaa ay ka gaadhayso saacad kale 3 saacadood hadda uga dhigtay inuu maanta isticmaalo. Marka plus waad ka kordhinaysaa 4 saac bay gaadhay. Haddii kale waxaad samayn kartaa inta taabato meeshii aan plus ka taaban lahaa isla 4 saac ayaad ku dhufanaysaa. Waa qoraysaa marka xaggan bidixda midigtaad ka buuxinaysaa. Marka halkan saas aan wadayaa kor. Saas aan wadayaa waxaan leeyahay tusaale 12 saacadood iyo 30 daqiiqadood buu maanta isticmaalaya. Markaasaan tigtaa buluuga taabanaya. Meesha aad marba balasta ka wadi lahayd asaa oran lahayd waxaad samaynaysaa 13 saac meesha taalo ku dhufo. Xaggan bidixda saacadaha laga wadaa. Tanna waxaa laga wadaa daqiiqadaha. Marka iminka 16 saacadood iyo 5 daqiiqo ayuu maanta isticmaali karaa. Okay baan siiyay kadib waxaan leeyahay done. Marka taas waa maanta kaliya inuu hadda xadidnay laakiin waxaanu gelaynaa isbuuca oo dhan. Tan ka hoose weekly schedule-kan gelaynaa jadwalka toddobaadlaha ee mawlidka qofku isticmaalaya ilmuhu. Isbuucii maxaad u ogashahay maalin walba aan ku dhufano. Marka waxaan leeyahay each day waxaan u ogol lahay haddaan minuska taabto daqiiqadihii baa sii yaraanaya. Okay
waad wadaysaa hal saac buu ka gaadhay taa macnaheedu waxa weeyaan sabti ilaa jimce maalin walba hal saac kaliya moolka isticmaalaya haddii laakiin aad rabtid maalmaha qaar inaad ka bedesho waxaan sameynaynaa edit each day baan ku dhufanayaa xaggan hoose ah oo kuu siinaysa awood in ilmaha mobilkiisa maalin walba aad saacadda doonto ka dhigi karto tusaale ahaan sabtida iyo axadda iyo inta kale oo dhan waxaan ka dhigayaa halkan aan taabanayaa sabtida iyo axadda oo kale waxaan ka dhigayaa 10 saacadood okay waan leeyahay okay isniinta kale soo qabo taa halkan ka soo bedel meesha laga bedelayo bidixda kor wadaysaa okay dhan ayaan leeyahay yes 10 saacadood baan ka dhignay iyagoo dhan saasaan buuxinayaa kan 10 saacadood ka dhig arbacada waxaad ka dhigtaa 12 saacadood saacad okay khamiistina waan soo ka dhaafnay talaadadii okay 10 jimcaha kaliya rabaa inaan ka bedelo jimcuhu waa kan hadda jimcaha waxaan ka dhigaynaa 24 saacadood inuu isticmaali karo ilmuhu marka halkan 23 saacadood iyo 55 baa ugu badan marka iska 24 saac 5 daqiiqo dhiman tigta saar dhan dheh sabtidana waxaanu odhanaynaa waa taabanaynaa 12 saacadood okay baan leenahay hadda saad arkaysaan adigu waalidow waxaad samayn kartaa waad bedeli kartaa maalmaha waxbarashada kale sabtida ilaa khamiista waxaad ka dhigi kartaa mid walba waad yareyn kartaa laba saac baad u furaysaa haddii laakiin aad ugu talagasho maalinta fasaxa oo kale jimcaha si gaarad iyaga u bedelaysaa marka aan baag dhaho oo aan hal mar laabto haddana aan si laabto meeshaynu soo galnay waxa weeyaan qaybta screenka inagu joogno waxaan galnay time limits kadib weekly schedule marka 7 maalmood baa ku soo baxaya maalin walba inta saacadood aad rabtid in mobilka ilmuhu isticmaalo ayaad ku buuxinaysaa kuna darso haddii 5 saacadood aad geliso maalinta axadda oo kale 5 saacadood baa loo tirinayaa isagoo soo doono ha u tashiisho ha u dhaqaalaysto totalka loo eegayaa haddii subaxdii uu 4 saacadood isticmaalo mobilka galabkiina uu daaro oo 1 saac isticmaalo 5 saac markay dhacdo saacad lixaad ma isticmaali karo mobilku iska xidhaya waa inuu 24 saac kadib ama maalinta dambe inta laga gaaray sugo marka qaabkan ayay tan u shaqeysaa waan ka laabanayaa xagga hoose marka waxay noogu yaala wax la yiraahdo app limits oo laga xadido applicationada ilmuhu isticmaalayo waxa ugu muhiimsan iyaduna aan ku dhufano app limits markaynu soo galnay app limits waa kan markaynu soo galnay dhammaan waxay noo soo baxay applicationada ku duuban mobilka oo idil marka waxaanu sameynaynaa mobilka applicationada ilmaha hadda TikTok to kale integaynaa waxyaabaha hadda sanadadan ciyaalka khadka ka saaray hoos baan deganaa waa kan hadda TikTok ayaan ku dhuftay saddex wax baynu marka sameyn karnaa marka koowaad horta halkan waxaa u sareysa allowed meesha furan macnaheedu waxa weeyaan mobilka ilmaha waxaa loo ogol yahay waxa la yiraahdo TikTok to inay ku shaqeyso haddaan xidhno that means uu block gareysmay okay looma ogola blockgaas waxaad sameynaysaa block weeyaan hadda saas ku block gareysay haddana block ku dhufto waan furay waa allow aduu hadduu allowedkaasi furan tahay TikTok ta mobilkaas ku shaqeynaysaa haddii laakiin aan xidhno aan dhan dhahno halkan u fiirso TikTok ta waxaa isku soo qoray blocked marka mobilka programka hal mar baa meesha TikTok ku jirtay uu ka baxaya oo dib loo arki maayo lamana soo degi karo waaye marka TikTok taas marka ilmuhu saasi ku tagaysaa laakiin hadda abtiin ku shaqeeyo blocktan ka qaad allowed markay tahay dhan dheh hadda limit off weeyaan waxa wali maxadidna marka allowedkaas hadday furan tahay waa loo ogol yahay haddaad xididna dhan baad leedahay saas ka block gareysmaya marka inuu saa taa ku fahno tan labaad waxa weeyaan set limit oo programkan waxaad ku xidhaysaa saacado ama daqiiqado hadda minutes waa kuwan haddaan qaybta plus-ka saa uga wado plus-taasaan ka kordhinayaa sidii kuwii hore 1 saac baynu hadda gaarsiinay that means waxa weeyaan maalin walba 1 saac baa programka ku xidhan TikTok 1 saac oo dhan markuu daawado ilmuhu TikTok tu iska xiraysaa ma geli karo waa inuu yiraahdo waalidka waqti weydiiso marka hadda aan ku dhufano okay baan dhahaynaa waxaan eegaynaa marka okay 1 saac weeye marka hadda saacad markuu isticmaalo ilmuhu 1 saac oo dhan mobilkaas TikTok tu daawado saacad kadib waa laga joojinayaa okay marka dham hadda waynu taasaan ku xidhan hadda warkaysan 1 saac baa ku xidhan TikTok kusoo dhufo tan kale ku dhufan xaggan waxaa la yiraahdaa unlimited time marka waxa weeyaan maalin walba waxa weeyaan limit kuma xidhna hadda dhan aan dhaho waa arkaysan hadda TikTok unlimited weeyaan sidii data unlimited oo internet lagu shubtay mobile kama bago ayo TikTok iska daawanaya 24 hours marka ma fiicna
oo si caadiya dee in ilmuhu iska dhex daawado waxaan iskaga dhex jiro dhaqankiisaaba ku baahaya. idinku waxaad samayn kartaa app limitka hadduu kaa uu kuu dooran yahay. Okay, tan waxa weeyaan haddii mobilka isticmaalkiisu ahaa maalintii oo dhan in 1 saac la isticmaalo isticmaalku dhacay, taa hadda kan wax kama bedelayo. mobilka haddii ilmihii 5 saac ku programsan inuu maanta isticmaalo 5 saac hadday dhacday TikTok buu daawan karaa maaha. laakiin tan macnaheedu waxa weeyaan waqtiga loo qoondeeyey waqti ka mid ah buu TikTok soo hosgelaya. tusaale ahaan maalintii waxaad tiri maanta oo kale waa sabti 5 saac mobilka ha isticmaalo. hadduu 5 saac soo wada isticmaalay dee TikTok meel ku isticmaalaa ma jirto. laakiin 5 saac aan u dhicin saacad ka mid TikTok uu ku qaadan karaa. marka kan waxa weeyaan wax limit ayaan loo samayn. set limitna waxa weeyaan in daqiiqado lagu xidho programka. unlimited waxa weeyaan in mobilka mar walba uu isticmaalo applicationka. halka allowed ana waan sheegnay haddii la xidho programkaas uu loo goreysmaya dib mobilka uu ma shaqeynayo. marka haddaad doonaysid inaan TikTok uusan ilmaha mobilka ugu shaqeyn block baa dhahaysaa dhan baan leenahay. Telegramka oo kale waad soo gelaysaa haddaad waqti ku xidhaysid set limit baa leedahay. haddaad ka wada xidhaysidna allowedka TikTok ka qaad. marka block markuu soo qormo dhan dheh waad arkaysaa Telegramkii iyo TikTok tiiba waa blocked. sidoo kale haddii aan u degno hoos YouTube-ka kale taabanaya isaga ma baloogayo laakiin set limit baan leeyahay waxaan ku xidhayaa isaga balaasta lagu kordhiyaa 2 saac baan ka dhigayaa. waan wadayaa inta 2 saac iska soo qorayso 2 hours markay hadda sidaa ay tahay dhan baan leeyahay. YouTube-kina waa kaa 2 saacadood baan ku xidhay. marka ilmahaas marka 2 saacadood oo dhamaystirto YouTube-kaas waa laga joojinaya waa inuu beri sugo. marka halkaas ayaan marka uga baxaya isagana wax la yiraahdo app limitska back baan leeyahay. okay kana sii noqo qaybtan waxaa soo haray schedules oo ah downtime iyo school time off. downtime waxa weeyaan waa xilliga mobilka ilmuhu iska xidhayo maalintii. tusaale waa gabal dhac oo kale goormaad rabtaa mobilka ilmuhu in habeenkii oo kale uu iska xidho. tusaale ahaan waxbarashada markay soo dhamaystaan habeenkii oo kale maqrib bay yimaadaan salaada cisho oo kale markuu ilmuhu tukado waad ka xidhi kartaa ama maqribkii. marka hadda waxaan furanaynaa downtime waa gabal dhaci mobilka. downtime-ka markaan saa u dhufto aan halkaas ka soo furno wuxuuna leeyahay marka weekly schedule-kan tegaynaa. tan waa caawa kaliya ayuu saameynayaa tonight laakiin kan waxaan ku dhufanaynaa waa isbuuc oo dhan baynu waxaan leenahay maalintaa heblaayo xilligaa haystamiyo maalintaa heblaayo xilligaasaa gabal dhac u ah oo mobilka isticmaalkiisu joogsamaya macnaha. weekly schedule-ka gal 7 maalmoodba waa kuwan hadda waxaa ku programsan 9 habeenimo in mobilkaasi xidhmo 7 aroornimona uu u furmo ilmaha. sidan way ku wacantaa haddaa ka bedelisid maalinta hore soo kalaan ku dhufanayaa waa axadda waxaan leeyahay start time-ka waa xilliga mobilku la bilaabayo inuu xidho oo macnihii waqtigiisu dhacay. end time-ka inta xidhitaanku uu ku eegyahayna waa 7 aroornimo. 7 wixii ka dambeeya mobilku uu shaqeynaya ilmaha. marka xilliga uu bilaabaya 9 habeenimo aad bay u fog tahay waan ku dhufanayaa. waxaan hoos baan u celinayaa 18 waa maqribka tigtan saarayaa. end time-ka xilliga xidhitaanku u dhamaanaya ilmaha mobilkiisa uu furmayana waa taabanaya waxaan ka dhigayaa maadaama laga yaabo ardayda qaar inuu u toosiyo salaada subax 4 subaxnimo tigtan saarayaa. halkan hoose marka maxaa ku qoran apply to all days of the week. almacno waxaa loola jeedaa intan aan hadda geliyey maalintan axadda maalmahoo dhan ha ka qaataan macnihii sidaan iyagana ha la mid noqdaan axadda oo macnihii maalin walba oo isbuuca ka mid ah maqribka laga xidhayaa ilmaha 6 maqribnimo 4 subaxnimo ayaa loo furayaa mobilka. marka apply all baan tig saarayaa dhan baan leeyahay anoo bedelin dhag 7 cishaba saas isku bedeleen oo maqribka mobilku xidhayaa 4 subaxnimo isku furaya. marka tan intaas ayadu marka ka shaqeysaa downtime-ku. back baan leeyahay halkan waxaa ku qoran wax la yiraahdo allowed apps. option-kan allowed apps-ka xagan ku jira waxa weeyaan mobilkan marka la gaaro xilliga maqribka aynu ka xidhnay ilmaha programo usii shaqeynaya. haddaan galo oo aan furo no apps weeyaan weli programo kuma jiraan waan soo gelayaa waxaan usoo furayaa program ka mid ah programada kanaan usoo furay ay ku qoran tahay ChatGPT unlimited-ka tigta u saar dhan u dheh ka laabo. halkaa marka maxaa soo galay one app selected. marka halka application baa marka la gaaro maqribka usii shaqeynaya kuwa kale oo dhan laakiin waa ka xidhan. marka tan waan iska xidhanaa uma baahnidin iska dhaafa. marka kaa option-ka faraha ka qaada adoo ilmihii yiri maqrib mobilkaas ka xidho ayuu programada qaar u ogolaanaya inaad u furto. marka marba haddii aan ugu talagalay maqribka in laga xidho 4 subaxna loo furo mobilka uma baahni programo kale inaan u furo. kanaa soo haray school time-ka ayaad markaa gelinaysaa. tusaale ahaan in ilmaha xilliga iskuulka kala sheegaysa xiisadaha u dhigto si uunan ugu jeesan waxaa leedahay xilliga iskuulka marka la gaaro
ilmahaas balse laga yeelayaa mawlka waan furaynaa isaga xilliga iskuulka hoos marka waxaa ku yaalla weekly schedule waxay sheegaysaa marka maalmaha fasaxa leeyahay maaha inta uu dhigto baad sheegaysaa. hadda tusaale ahaan sabti iyo axad bay ka reebeen oo dee gaaladu waxay xisaabsataa khamiista jimcaha iyaga booskooda waxaa ku jira sabtida iyo axadda. hadda sabtida iyo axadda iyagu way ka xidheen waan taabanayaa axadda oo kale hadda school time off weeyaan marka waan furayaa dhan baan leeyahay hadda waynu furnay kanna aan furna sabtida waa off isna waa furaynaa marka hadda 7 cishaba waxaan nidhi waxbarasho way jirtaa haddaba xilligii waxbarashadaynu bilaabaynaa marka sabtidan ka bilaabaynaa ama say u kala horeeyaan sabtidii waa tan Saturday baan taabanayaa jadwalkiisaan taabanayaa goorma waxbarashadu u bilaabataa sabtida waxaan leeyahay tusaale ahaan 6 subaxnimo goorma u dhawaataa meesha end timeka baan taabanayaa waxay u dhamaataa hadda 3 duhur waxaa ku jirta galabnimo markaa hoos baan ugu celinayaa 12 tigtaa marka halkaa hoose waxaa ku yaalla qaybtan ka hooseysana break waa xilliga break timeka isagu wuxuu hadda automatic u geliyay 8:45 ilaa 9:45 hal saaca marka waan bedelaya end timeka waxaan leeyahay waxaan ka dhigayaa xilliga break u dhamaanayo 10 iyo barka baan ka dhigayaa xilliga musaaco u dhamaanayo waxaana laga bilaabayaa 9 iyo barkana uu ka bilaabmaya marka start timeka musaacahan break timeka waxa weeyaan 9 iyo barka subaxnimo ilaa 10 iyo barka subaxnimo marka halka apply Monday Friday waxaan leeyahay ilaa adoo 7 maalmood oo kaleba 7 maalmood oo dhan waxaa ka dhigtaa ka dhig ishay wax la yiraahdo intan ka dhig in 12 la baxo 6 la soo galo break timeka yahay 9 iyo barka ilaa 10 iyo barka tigtan saaraya safe baan leeyahay maalmaha kale oo dhan saasay noqonayaan oo break timekooduna 9 iyo barka ilaa 10 iyo barka buu noqonayaa iminka marka waxaan sameynaynaa waan hawl fudaysanay khamiista iyo jimcaha waxaan sameynaynaa jimcaha baynu waqtiga bedelaynaa waxaanu ka dhigaynaa maalin fasaxa Friday waata waan ku dhufanayaa qaybta maalinta ku dhuftay marka shaqo ma jirto weeyaan maalinta waa no school baa isku soo qortay qaybta free ku qoranta waan ku dhufanayaa FRI haddii kalena saacadda ku dhufo maalinta jimcaha halkaa ka soo xidh school time onta xidh dhandhe no school time weeye jimcaha khamiista haddii ardayda qaar break time bay dhigtaan maalinta khamiista oo kale waxaa sameynaysaa soo taabo markaa soo taabatid waxaa sameynaysaa wax la yidhaahdo waxaan leenahay khamiista oo kale waxbarashadu waxay bilaabataa 6 meesha 12 ay bilaabmaysa waxaan ka dhigaynaa 9 baynu ka dhigaynaa tigtaynu saaraynaa dhan baan leenahay marka khamiistina saasaynu ku bedelay marka weekly schedule-ku waa jadwalka iskuulka ee ardayga ayaa sheegaysaa in maalintu fasax yahay dib baynu uga soo noqonnay marka taasaa loo buuxiyaa marka schedule-kana aanu ka baxno marka jadwalkii ilmaha waxbarashada jadwalkiisii mobile isticmaalista wixiiba waynu buuxinay waxaynu gelaynaa marka qaybta labaad ee controlska oo ilmaha laga maamulayo adeegsiga mobilkiisa controlskan galay controls marka aad bay u farbadan yihiin haddii tusaale ahaan ay ku jirto meesha la yidhahdo Google Play Store baa ugu horeysa waa programmadu ilmuhu la soo degayo in waalidku door noocmaa buu horta ku leeyahay inuu ka ogaano Google Play-gan taabanaya Google Play waxa weeyaan xagga u sareysa waxaa ka mid ah purchase and download approvals programmada ilmuhu Play Store-ka ama ha iibsado ama bilaash ha noqdo inuu programmada uu soo download gareysanayo la degayo yaa awood u leh waan taabtay marka waxa weeyaan approval waxa weeyaan programmada waalidku ma fasax ma laga weydiisanayaa hadda haddii halkan aan ku dhufto content waxa weeyaan program kasta oo ilmuhu la soo degayo in waalidku fasax la weydiisto taana paid content-gana waxa weeyaan kuwa lacagta ah ayaa waalidka la weydiinaya ogolaanshiyo in app purchases kuwan waa isku mid neverna waxa weeyaan marnaba weydiin lacag fasax marnaba la weydiin maayo waalidka markuu ilmuhu program la soo degayo oo Play Store la soo degayo laakiin haddana all content waxa weeyaan program kasta oo Play Store ku jira oo ilmuhu damcunu la soo dego waxaa la weydiinayaa fasaxa waalidka marka waxaan sameynaynaa hadda ilmaha ayaa waxaan sameynaynaa mobilkiisa ayaa waxaan dhahaynaa bal application la soo deg biinka aan ka furo mobilkiisa game kaasoo kale ayaan ku tijaabinayaa marka mobilka ilmaha waxaa ii soo baxday shaashada ayaan idiin soo saaray screenshotka wuxuu leeyahay asking person waxa weeye in waalidka anu shakhsiyan intaan mobilka ula togan dhaho markaas ugu dhifto gmailkiisa passwordkiisa weydiinaya abba oo iga fur programka iyo galo marka gmailka passwordkiisa inta la geliyo approve baa la dhahayaa programka oo uu shaqeynaya oo uu soo degaya haddana asking message-na bashqad baa ii soo dhacaysa oo xagga waalidka u dhacaysa
asking message ka marka ku dhufanaya wuxuu soo qoray marka xagga moolka ilmaha approval request sent ogolaanshihii codsigiisa waa la diray oo waalidka moolkiisa loo diray codsigaasi marka waalidka moolkiisa xaguu ka soo gelaya codsigani marka back baan leenahay haddana back halkaa u sareysa profileka waalidka bidixdiisa waxaa yaala gambaleel oo notificationka calaamadiisa ah haddaan ku dhufto waa refresh garaynayaa markaan saasoo kale u riixaysaa refresh baad dhahaysaa waa gameka wakaa marka review iyo deny haddaan deny dhaho programka waan kansalay codsiga ilmaha waan ka dhaga adeegay waan u diiday inuu applicationka la soo dego okay haddii kale waxaan sameynaya review intaan ku dhufto ayaa wax yar markuu sidaa u wareego waxaa leeyahay approve marka deny waa diidmo approve-na waa aqbalaad approve haddaan idhaahdo moolka ilmaha waa loo ogolaaday weeyaan gamekaas saasuu kusoo degayaa marka waa iskaga noqonaya adiga wixii ilmuhu markuu soo codsado programmada gambaleelkaasaad ka eeganaysaa mar kasta oo aad aragtid programu kaa soo dalbaday ama inaad u sidayso uu kaa sugayo waad hubinaysaa in horta applicationkan u qalmo haddii game iyo waxyaabo iska ciyaal ah uu yahay waxyaabaha carruurtana u fasax waxyaabahadan doonayna deny baad leedahay waad diidaysaa taasi waa qaybta youtube-ka ay noo soo hadhay youtube-ka sidee loo xadidaa youtube-ku ku hawl yar yahay isaga aan ku dhufto ogo meeshaanu ku jirnaana waa controls youtube-ka ayaan galay youtube-ka isaga waxaad furaysaa oo keliya badhankan waxaa la yidhahda youtube restricted mode 100% waxyaabaha ilmaha loo soo bandhigayo oo waxay noqonayaan waxyaabo ciyaalka loogu talagalay waxyaabaha 18 sano jirka wixii ka weyn loogu talagalay waa laga qarinaya wixii 18 ka hooseeya ciyaalka iyo waxaas oonbu ilmuhu arkaya marka kaadaa u furaya bas was kaga noqonaysaa youtube-ka markaa wixii uu ka daawanayo waa la kala shaandhaynaya waxaa hadhay googlaha iyo waxyaabaha uu ka baarayo chromeka iyo website-dada isaga qaybtan saddexaad baa qaabilsan waynu ku dhufanaynaa marka hadda 3 sare baa halkan ku jira allow all sites oo ah haddaan ku dhufto dhammaan website kasta oo ilmuhu galo u ogolo inuu galo haddii kan waxaa leeyahay try to block explicit sites oo ah in website-dada qaar aan isleeyahay waxyaabaha anshaxumo ah baa ku jira baa laga qarinayaa waxyaabaha qaaqaawadida iyo waxyaabaha anshax darrada baa laga qarinaya waad arkaysaa xagga hoose wuxuu kaga soo qoray no filter is perfect mid ma jiro horta wax fiican oo kala shaandhayna laakiin kan waxaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo in ilmaha laga qariyo website-dada waxyaabaha qaawan ee sexuality-ga waxaa soo hadhay qaybtan saddexaad ay ku qoran tahay only allow approved sites only allow approved sites oo kaliya waxaad u ogolaataa in uu booqdo website-da adigu aad buuxisay oo aad tiri website-ka mooyaane website kale yuusan gelin marka haddaan dhahno all allow kaa u sarreeya waa website-dada oo dhan kan waxyaabaha qaawan baa laga qalinaya kan la kaad u ogolaatid mooyaane website-ka la gelin maayo marka kanan isticmaalana ugu wanaagsan approved sites hadda waa kuwan waa ever website aad u ogolaatay ma jiro website u diiday oo block sitesna waa kan wax website la diiday ma jiro marka kuwa la ogolaaday baan tegayaa approved sites wax website kuma jiro waxaan leeyahay add site baan leeyahay waxaan qorayaa website magacii salaam alaykum www linkiga ugu dhammaystiran ma gelinayaa dot waxaan leenahay okay tusaale ahaan waxaan leenahay samfw.com dhan baan leeyahay hadda halkaa hal website baa ku jira that means waxa weeyaan approver site-ka aan anugu fasaxay inuu moolkiisa ka galo waa website-ka bis website kale hadduu damco inuu galo maxaa dhacaya marka xagga moolka ilmaha baynu eegaynaa hagaag si aan u hubino in waalidku inaga tusiyo website-dada qaar waxaan tegayaa application-ka chrome-ka kadib waxaan gelaynaa website ka duwan website-kii waalidku inoo fasaxay okay waxaan dhahaynaa marka www.laacib.net oo kale oo tusaale kadib wuxuu inoo soo saaray ask your parents waa website-kan waalidkaaga weydiiso a parent or guardian has to say waa inuu waalidku yidhaahdo waa okay haddii markaan dhahno ask in person waa inaan markaan ku dhufto aabba ula tago ama hooyo markaa passwordka gmailka waalidku ii geliyo haddaan idhahdo ask in message waalidka waxaa usoo dhacaysa bashqad sida tii markii programka oo kale la soo degayay marka taas marka waiting for permission waa kan hadeer fasax baa sugaysaa marka waalidkana mobilkiisaynu eegaynaa waxaa usoo dhacaya isagana bashqad sheegaysa inaan website-ka u baahnahay okay aan eegno marka codsiga ilmaha website-ka inuu ina soo gaaray waa arkaysaan halka hal message baa noo yaala notification-ka waan ku dhufanaya marka wuxuu leeyahay laacib.net buu soo codsaday ilmuhu haddaan deny dhaho waan diiday marka ma geli karo website-kaas ilmuhu ma geli karo saasaan ku diiday marka website-kana qaabkaas uu shaqeeyaa qaybta website-dadu halkan haddaad garanaysid
blog website waa blog website-dada raba inuu galaad ka diiwaan gelinaysa laakiin waxaa kaaga fudud kuwa ogashahay uun baad u gelinaysaa halka marka mid kale ma geli karo laakiin blog sites-ka waxa weeyaan website baad qoraysaa linkigiisa ma geli kara ka marka kaasina waa taas weeyaan website-dada marka qaabka loo ilaaliyo Google search-gana waxaa loogu talagalay waxyaabaha ilmuhu ka raadiyo Google-ha haddaan filter dhaho wuxuu ka qarinayaa linkiyada iyo sawirada iyo qoraalada waxyaabaha anshax daran buu ka qarinayaa ilmaha bulurkana waxa weeyaan in humaag laga geliyo waxyaabaha qaawan markuu qoro ofna waxa weeyaan laba control waxna laga qarin maayo waxna humaag laga gelin maayo wax kasta uu qoro sideedu u soo baxaya marka taasina waxa weeyaan filter okay saddexdan waa isla fahnay waa iska noqonaynaa marka block or limit apps iyaga hore baan soo aragnay waxa laga block gareeyaa waqtina lagaga xidhay applicationada ilmaha hore soo aragnay hadda programka hadda ku dhufatid oo qaybtii waqtiga lagaga xidhay kii laga bloogayay horaan qaybtan soo dhaafnay Gemini-ga iyaga taas automatic buu u furan yahay AI-ga Google-ka oo kale marka su'aal la weydiinayo waxyaabaha qaar in laga filter gareeyo Google Assistant-ga laftirkiisa waa qaybta Google-ka soo hoosgalaa isaga waxa ka bedelmayno location-kana hore baynu soo furnay laakiin haddaynu halka aan furno aynu tan on dhahno inaad arkaysaa waan rajeynaya insha Allah tacaala hadda qaybtan waynu furnay waa inaad arki kartid waalidku uu arki karo ilmaha location-kiisa marba meeshuu joogo ama GPS-ka meel kale ka soo furnay way jirtay hadda inta waan isla aragnay qaybta ugu dambaysa qaybta controls-ka waxa weeyaan mobilada uu ka galay ilmuhu Gmail-kiisa imisa mobil buu Gmail-kiisa ku isticmaalaa haddaan dhaho signed in halka mobil marka Gmail-kiisa ku isticmaalo waa inta weeyaan marka mobil bishii u dambeysay mobilada isticmaalay waxa halka ku arkaysaa wax kale oo ka arkaysid qaybta location-ka iyada waxaan ka arkaynaa waa qaybteena saddexaad location-ka ilmaha marka hadda waxa la baarayaa location-ka laakiin haddii ilmuhu uusan khadka u furnayn wuxuu soo saarayaa qoraal oranaya ilmuhu waa offline oo maaha online laakiin marka hore uu raadinaya laakiin waxa muhiim ah in ilmaha markaad rabtid in meesha uu joogo la helo hadda waa kan his device maybe offline wuxuu leeyahay mobilkiisa waxa laga yaabaa ilmuhu inuu offline yahay marka tan iyadu waxa khasaba marka hore in location-ka ilmaha si aad u heshid uu online ku xidhan yahay maadaama waxa la isticmaalaya satellite iyo uu yahay serverro online marka halkan aynu soo gaarnay waxaanu niri programkeena saddex qaybood buu kala baxay waa screen time control ama controls iyo location qaybta inoogu dambaysa marka waxa weeyaan xagga sare ee profile-ka ilmaha ayaan ku dhufanayaa kadib halkan dhexe qaybtan waxaa ku qoran parent access code-kaasaan ku dhuftay iminka koodhkan wuxuu dhacayaa 39 daqiiqo ka dhiman waa 40 daqiiqo loo galiya waa 175987 haddii ilmahaasi hadda uu rabo inuu iska saaro oo aan dib u controlin koodhka hadduu helo iska saari karaa moolka sidee baan ku ogaan karnaa screen time kan tagayna ilmaha yar moolkiisa log baan ku xidhaynaa gabigiisaba marka waa eegaynaa inuu xidhay waa kan uu xidha okay ilmaha yar moolkiisa waa xidha haddii aan dhahno kan aan ku dhufano ask for more time macnaheedu yahay waalidka waxa weydiisataa waqti fara badan wuxuu weydiinayaa passwordka waalidka haddaan dhahno try another way saad arkaysaan oo waddo kale ma jirtaa aan moolku igu furmayo waqti ku kordhisan karo koodhii buu dhahaya geli marka koodhka waxaa 87 u geliya soo maaha wakaa moolku ilmihi yaraa u gudbay maxaa rabtaa inaad samaysid marka ilmihi yaraa waa la weydiinaya koodh buu helay ma hal saac baan kugu darnaa ma 30 ma 15 daqiiqo ma 5 daqiiqo mise unlock for today maanta oo dhan wuu kuu furnaanaya moolku inaan koodh buu haystaa ninkani moogta wuxuu doonu samaynayaa waxaan leedahay unlock for today dhan maanta oo dhan wuu furnaanaya sababta moolkaas isugu furayna waxa weeyaan markii laga xidhay koodhkii buu helaa okay marka waalidku haddii koodhka qof lagu kalsoon yahay xaafadda ama hooyadoo kale hooyada waa ka maslaxaysaba haddaas moolka ilmaha yaraa iska isticmaal waxaa leedahay way koodh baan gelinaya koodhka ugu fur marka saasa kana uu ugu shaqeeyaa